بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحاب الجنة وكحرن ومركلي ولاشين ساري مقال عصب حرجينا هنا عفمات طبطان أحباب تيدا سورد هذا مركلي مقال عصب أصحاب بدنا يقصوا عصدي مرقان مرهوري وانا صداي سوري ما انت اي صورة قشينا إذن سو دياريو qaabkaas ayuu ugu dambeyn kusoo baxay axbaabteeda waxaa rajeynaa ka wada faa'iidi doontaan ciddii soo codsatay ciddii kaleba maasha allah tabaaraka allah waad ka maqsuudi doontaan qaabkaas ayuu ugu dambeyn kusoo baxay quruxda badan leh waxyaabaha uu ka kooban yahay wax jiko walbo mutawafir ku ama guri walba laga heli karo waaye maasha allah wax weyn oo saas u adag maahan waa easy qaabka loo diyaarinayo waxyaabaha laga diyaarinayo waxaan rajeynayaa inaad ku wada heli doontaan biidni illah sidaas wacan ila socda axbaabteeda insha allah wax alla wixii aa haystad ayaa ku cuni kartaa rooti haddii aa haysatid canjeero jabaati ama sabaayad wax uu diidayo malahan maasha allah tabaaraka allah qaabkaas quruxda badan la ayuu kusoo baxay axbaabteeda maasha allah haatan waxaa kusoo dhawaataan insha allahu tacaala waxyaabihii aan ka diyaariyey iyo qaabkii aan u diyaariyey waxaan rajeynayaa inaad si fiican u wada fahmi doontaan insha allah qaabka ugu fudud oo fahmi kartaan ayaan isku dayayaa inaan idinkugu soo gudbiyo insha allah sidaas wacan ila socda axbaabteyda biidni illah waxaan halkan ku haystaa sidaa wada arkaysaan toon aan soo tumay iyo kabsar waxaan kaloo halkan ku haystaa basal hal xab weyn oo aan soo jarjaray waxaan kaloo ku haystaa 2 qaando oo saliid ah saliidda badan ma jecel axbaabteyda diyaarto ka kordhisan kartaa fenugreek powder waaye kan waa xulbo shiidan waa qalkanne sidaa wada arkaysaan qalka cad soy sauce waaye dhaladan waxa ku jira maasha allah waxaan kaloo isticmaalaa turmeric powder waa huruud organic ah iyo kota hilib ama rubac hilib ari ah hilib ari hilib geel waxa waxa haysta ayaa ka diyaarsan kartaa maasha allah hadan waxaan soo saaray maqliga dabka saliidda ayaan kusoo shubay axbaabteeda sidaa wada arkaysaan saliidda qiyaastii waa 2 qaando qaandada cuntada ah saliidda badan ma jecli haddii aad jeceshahay ka kororsan kartaa laakiin saliidda waa badan waa laga fiican yahay maasha allah caafimaadku ma wanaagsano qaabkaas ayaan usoo dallacaya insha allah saliiddii ayaa ku jirta sidaa wada arkaysaan birtaan dabka soo saar waxaan goy soo kululaatay waxaan ku soo daray sidaa wada arkaysaan basashii oo ay diyaarsaneed iyo cusbo ayaa isku dhex jirta soo sidaa wada arkaysaan saxanka cusbo iyo basal ayaa iigu jirta axbaabteeda sidaas la socda cusbo yar oo aan badnayn maadaama aan qal iyo isticmaal dano soy sauce ma u baahni wax kale oo dhanaan zaid ay noqonayo maraqa basasha markii cabaar ay saarnaata kadib waxaan ku soo daraa insha allah markii aan isdhex mariyo kadib toontii diyaarsanayd ayaan ku daraa insha allah toontii ayaan kusoo daraa sidaa wada arkaysaan axbaabteeda waxaan kaloo kusoo darayaa wax yar oo xulbo ah insha allah waa xulbada shiidan fenugreek powder xulbada shiidan sidaa wada arkaysaan wax yar qaandada foodada ayaan kusoo daray maasha allah intaas markii aan isdhex mariyo kadib waxaan kusoo daraa insha allah hilibkii diyaarsanaa oo aan soo jarjaray ayaan kusoo daraa sidaa wada arkaysaan sidaas ayaan kusoo wadaa insha allah hilibkii haddii waxyaabihii aan isku soo dardaray ayaan isdhex marinayaa ama aan isku dhex qasaa insha allah qaabkaas waxaan ila socda axbaabteeda insha allah hilibka si uu koro wuxuu u baahan yahay insha allah inuu xabaar uu dabka saarnaado biyana lagu daro haddana waxaan kusoo darayaa soy sauce sidaa wada arkaysaan qiyaastii qaandada haafkeeda oo cuntada waan isdhex marinaa haddana sidaa wada arkaysaan maasha allah tabaaraka allah caraftii iyo wixii oo dhan hilibka dhexda ayay ka galayaan maasha allah waxaan kaloo kusoo darayaa insha allah qalka cad sidaa haddaa hore idiin soo tusiyey maasha allah qalkaas ayaan kusoo darayaa qiyaastii 1 qaando asne qaandada cuntada ah qiyaastii intaas markii aan si fiican isku dhex mariyo insha allah
wixii kaloo aan kusoo dari doono waa ila wada arki doontaan biidnillaah. hilibka sidaa wada ogtiin axbaabteed wuxuu u baahan yahay inuu karo. galaas biyo ayaan kusoo daraya sidaa wada arkaysaan, waana daboolaya biidnillaah. dib dambena mu fiila insha allah uu ka bislaado, biyahana uu ka gursado si fiican soo u bislaado kadib waxa aan ku sameyn doono waan isku soo laabanayna insha allah. haddana daboolka ayaan u jeeday sidaa wada arkaysaan, qaabkaas ayuu noogu soo karaya insha allahu tacaala. markii oo aan soo diyaariyo oo noo soo bislaado ayaa ila wada arki doontaan. qaabkaas ayuu biyihii dhan usoo guursaday. haddana waxaan kusoo daraya kabsartii iyo diyaarsaneed. sidaas ayuu ku dhan yahay insha allah. saxanka markii aan kusoo diyaariyo ayaan isku soo laabanayna insha allahu tacaala. maasha allah tabaaraka allah axbaabteedin dhiinaya idin macalina soona tijaabiya biidnillaah. testigana idinkooba carafta haba sheegin. maasha allah qaabkaas ayuu ugu dambeyn kusoo baxay. waxaan rajeynayaa axbaabtii soo dalbatay inay ka wada maqsuudeen, casharkana ay fahmeen, biyo badan ma u yihiin. sidaas ayuu diyaar ku yahay. maasha allah tabaaraka allah. haddii aad iska bulo tahay, haddii aad qof kale taabo waad diyaarsan kartaa. wax easy ah, jikoonigana laga helayo mutawafira. badanaa waxaan isku dayaa waxyaabaha la heli karo inaan wax kasoo diyaariyo. maasha allah axbaabteeda sidaa wada arkaysaan, wax baradha iyo kaarad xataa barbarooni ma soo isticmaalin. qaabkaas ayuu ku idil yahay. maasha allah tabaaraka allah. waxaan rajeynayaa inaad ka wada hesheen axbaabteyda. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawo please subscribe. haddii aa horey noola joogto ka hesha muuqaalkana like garee, asxaabtaada iyo eheladadan usii sheer garee. wixii fikradana xagga commentiska igu soo qora. fikradihiin waa ii muhiim axbaabteyda, waan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad mar walba ila socotaan. fikradihiin fariimiin isugu jiro dhiirigelinta iyo ducada. jazaakum allahu khayr. xagga ducada laygu soo kabo insha allah. anna waxaan isku dayaa insha allah waxyaabo badan inaan idinkaga soo faa'iideeyo insha allah. wixii aan awoodo ama aan ka gaari waayana cafwan insha allah. la isku cudur daaro, mashquulka ayaa iska badan. fiidiyoyada qaar markii layga codsado waa lasoo daahaa, sorry. marka axbaabteyda maraal markii aan soo geliya ku raalli ahaanaysa. fiidiyoyadana dhammaysta maasha allah bilow ilaa dhammaad. qofka markaas ayuu wax ka dhigi karaa ama waxa uu fahmay wax kala fahmi karaa. haddii uu fiidiyowga laakiin bilowdo iska ingredientii markuu arko wadana iska xiro ama uu boodbootiyo, waxba saas ma fahmayo. wuxuu waa cashar. cidii taqaan ilaahi u barakeeyo, cidii aan aqoonin ilaahi subxaana watacaala ha u fududeeyo, hana soo dhawaato, ha ka faa'iidaysato. maasha allah tabaaraka allah. asxaab iyo akhyaar badan ayaa soo codsadeen. waxaan rajeynayaa iyagana ka wada maqsuudeen oo ay ka heleen. maasha allah qaabkaas ayuu ka idil yahay fiidiyowgeeni ama muuqaalkeeni maanta. waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad mar walba ugu xirantihiin janalka waa janalkiini, waa janalkeeni, waa janalkii faa'iidada. maasha allah inay ka wada faa'iideen ayaan rajeynayaa. faa'iidooyin badanna aad insha allah ka sugaysaan oo aadna ka faa'iidaysan doontaan biidnillaah. qaabkaas quruxda badan la ayuu kusoo baxay axbaabteeda. maasha allah tabaaraka allah. waa hubaal inaad ka maqsuudi doontaan oo aad ku qanci doontaan insha allah muuqaalkan cidii daawato insha allahu tacaala. biyo badan malaan, waxa u malaan maraq yar oo qiyaas ah oo maasha allah ay tastigiisna aad u macaan sida wada arkaysaan. soo tijaabiya axbaabteyda. waan idinkaga mahad celinayaa ku xirnaanshaha channelka aa ku xirantiin. maasha allah jazaakum allahu khayr. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. jazaakum allahu khayra. السلام عليكم
waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Muuqaal kale oo xiiso badan oo inoo xigi doono muuqaalkan insha allahu tacaala. maca ricaayati illaah. maca asalaama.